وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي كداعد وبالي ودني قاد دلالي كدافع عيالي ديدكي وداد شالي كان قبيل كديدالي بالمدى دونالي كان قبيل كديدالي بدني مدى دونالي ديني هوشتالي كان لعبك توسنو وحكستا ودقاتو وديك جري دحدي سالي كنتك يا قونتو تدكو كأفلحانو دابع تعليم تالي دلقا إيا بيرا كيام بلو تاكو دقالها تركنا يالي دغلا تركنا يالي في ما تتونا داوي يا عذركو دبردو يا عذركالي دنيتا وليغا هذه يا ماتنا إيمانكي صدقالي. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ورقيا محمد waxaanu markaan halkan marka hore ka salaamaynaa oo aanu si diiran oo kaliya laab leh aanu ugu soo gudbinaynaa ummadda Soomaaliyeed oo hadalka iyaga maqli doonta oo na daawad doonta waanu rabno halkan inaanu barnaamijyo taxana ah oo ummadda Soomaaliyeed aanu rabno inaanu kula wadaagno xag wacyigelin fikrada soo gudbin aanu rabno inaanu ummadda Soomaaliyeed waxa ku kordhino waxna ka kororsano inaanu wax wada kororsano inaanu ugu soo gudbino oo ka qayb qaadano dadkan walaalaha iyaga oo isugu yimid ama isku bahaystay ururkan aanu ula baxnay Samatalis walaalahay baan ku soo dhaweynayaa madashan aanu annagoo meelo kala duwan oo dunida kala joogna waqtiyo kala duwan ay noo tahay ayaan salaan iyagana u soo gudbinayaa kuna soo dhaweynayaa madasha waa walaal cabdirasaaq daad cabdirasaaq sheekh axmed maxamed cabdi caynab walaal saleebaan cabdi cali marka ku soo dhawaada waa wax wanaagsan oo lagu farxo inagoo caafimaad qabna dunida kala duwan joogna qof walba waqti gaar ah u tahay inaan galabta halkaan isku helno ku soo dhawaada waa wax ilaahay looga mahad celiyo waxaan hadda ku soo dhaweynayaa oo hadalka siinayaa walaalkeen maxamed cabdi caynab oo kooxda Samatalis sida ay isku heshay oo meesha tan isugu soo xirantay iyo ujeedada aanu isugu nimid waxa isku kaayanuday oo isugu soo xiranay inaan la wadaaga walaal maxamed ku soo dhawow والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء رقية واد يا أصحابتك اللي تو سماتلس مقعودي يا أمد الصوماليات قارها بنتلان أمد هذا وحاني ذكر سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول محمد عبد العنبة وحان جعل هاي إن بريفير إذن كسيو كوحدة نذا Samatalis sidee bay ku aasaasatay maxay u taagan tahay ujeedadeedana maxay tahay runtii koox oo marka hore istiqiin ma nihin adduunkuna maanta communicationka iyo meediyaduna waxa weeyaan waa wax oo aad u horumaray waanu isa soo jilaabanay qof Facebook wax ku qora qof idaacad ka hadlay qof joornaal meel ku qoray kolba qof walba fikirkiisa ayuu mujtamaca isagoo inta kale aan garanayn oo la wadaagay sidaas baana
anaguna isku baranay aniga ninkii kuwa soo bartay wuxuu ahaa cabdirasaaq anna waxaan bartay ruqiyo cabdirasaaq suleymaan saas dad isugu yimi baanu nahay waxaana naga dhexeeyey dareen iyo laxajaclo iyo kalsooni isku qabid iyo dareenka ummaddanada iyo dalkanaga aan u qabno ayaa horta isu kaaya keenay taas oo dhibka Soomaaliya guud gaar ahaan dhibka ka taagan gobolladii aanu ka nimi ee dhanka waxbarashada caafimaadka dowlad wanaagga cadaaladda horumar la'aanta dhalinta maaragtay bilaa rajada ah oo badaha ku dhimanaya in aanu isla qabno dareenkaas ayaa isu kaaya keenay kadibna waxaanu garanay in koox la yiraahdo samatalis wanaag sheegaysa aanu ummadda aanu u soo jeedino baraarujin tusaaleyn war sida aan ku jiro sida ka fiican baa dhici karta maxaa ina haysta maxaa ina ka khaldan see uga bixi karaa tala wadaag ma nihin koox dan gaara wadata siyaasad gaara wadata xildhibaan raadinaysa mucaarad ah xisbi ka mid ah ma nihin waxaan nahay muwaadiniin ee ka go'an tahay in dadka like mindedka ama shicibkooda inay baraarujiyaan war xaaladdan aan ku sugannahay 34 sano waxaa possible ah mid kaloo ka fiican inaynu helno laakiin waa markii ummaddu ay garato dowladnimoy maxaa tahay waddankeenna jiilka ku nool siyaad barre markuu qabsaday dictator buu ahaa dagaal sokoye warlords buu ahaa kadib waddankeenni waa kala qaybsamay meel kasta group baa ku habsaday dadkaas maamul goboleedyada haysta iyo kuwa haysta federaalka ma ay noqon dad ummadda garanaya ummad dagaal sokeeye gashay oo dictator haystay sida dhibkaas dadkeennina waxa weeyaan waa dhibaatooyin badan bay isaga sabroon marka annaga ujeedanadu waxa weeyaan baraarujin wanaag sheegid tala bixin xataa maamulada dowladda Soomaaliya ka jira iyo kuwa Puntland ka jira afkaar fiican inaanu siino warsaatan ma haysataan ku haboon shicibka in ay gartaanin dowladnimo maxay ujeedadana ugu weyn oo aanu rabno inaanu shicibkanaga la wadaagno Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan Puntland waxa weeyaan dowlad wanaagay maxaa tahay shicibku markay gartaan markaas iyaga ayaa waxay sameynayaan markaa muqaarana isu fiirinaya wax hadda ay ku jiraan iyo sahanka aanu rabno inaanu ummadii aanu barro marka walaalayaal qof kasta oo Soomaaliya qof kasta oo Soomaalinimadu ku weyn tahay waa u furan yahay inuu xubin ka noqdo samatalis marka waa ka baxaya hadalka waxaan ku celinayaa xiriiriyaha walaal ruqiyo waana iga intaas warbixintii waalaikum salaam walaal maxamed baad ugu mahadsan tahay sidaas kooban oo aad ururkeena samatalis iyo ujeedada ay dadkan walaalaha isugu soo xirmeen iyo dareenkii isku keenay aad inoo ku soo koobtay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya 33 sano mise 34 sano kadib waa maxay dhibaatooyinka hor yaalla ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaan maxaase xal u ah ama si kale haddaan u dhigo waxa weeye 33 sano kadib maanta Soomaaliya meesha ay taalo sida ay u eg tahay muuqaalka ay leedahay maxaa sababay meeshaas foosha xun oo indhaha dunida iyo indhaha Soomaalida iyo indhaha ummadaha dariskeena ah qowmiyadaha dariskeena dalalka dariskeena ah dhinac kasta markii la fiiriyo sawir fool xun oo waliba xagga hoggaanka dowladnimada
waxbarashada arrimaha bulshada oo dhan waxbarashada amniga caafimaadka dhinaca walba dayacaas ka jira oo aad u fool xuno dayaca maxaa keenay weeye waa maxay sababtu maxaa si xal noqon karo see looga bixi karaa dhibaatadaas waxaan marka hore su-aashaas weydiinayaa walaalkeen cabdirasaaq sheekh axmed ku soo dhawow walaal بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفر حسنا هاي وفأهان أصحابتي أن أسكبر أني درين كاس هذا وراشي ربيو إيو ولالكي عينب أي تلمامين inaynu mar kale is aragno inagoo wada joogin isla maqalno aad baan ku faraxsanahay su-aashaas walaashay soo gudbisay raalahada waa su-aal da-weynoo madaxa daalinayso wixii lagu daweyn lahaa dadweynaha la weydiin xigmad ah baan soo xusuustay lixdamadii waxaan jeclahay inay 66kii ahayd 66dii markii labadii madaxweynoo dalka markaas waa igraabkii ciidanka ka hor aadan cabdulla cusmaan raxmatullahi caleyh iyo cabdirashiid cali sharmaake asagana allah u naxariiso markay isbedeleen waxa weeye waa qiso dheer laakiin waa soo koobay waxaan xusuustaa cabdirashiid oo aad loo jeclaa dagaalkii 4 iyo 7 hadalladu ka soo jeesay dagaalka oo ahayd gacan doorashadii waxaa soo dhowday 4 iyo 60 marka hala joojiyaa la yidhi doorashada wuxuu yidhi la joojin mayo gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna codkaan ku bixinayna shacairkaasuu taaga ama halku dhagaas hadalkaasi dadka soomaalidana waad ogtihiin waa dad cadaalad iyo يعني أباهن أما أؤمن يونا إسلام وقتها كدوات كي بوا اسبدل كي دعي دولة دي مطلعها كاها ولا بدلي درجات حسين برايم مينستر لو ما قعابي كدب مدة صدح سنة برا أي عبد الرشيد وحسوس هاستاج مدحوين وكوكو ليستي sidii marka loo jeclaa oo caleemaha loo shiibahiyey soomaaliduna waa iska ogtiinoo hadba wixii yimaada waxaa la moodayaa inuu keenayo qofkaasi xal wax walba oo dhibooto ah oo taagan wax walba hadda ama dhaqaale iyo siyaasadda hogaaminaysa ayaa saldhig u ah dadkii waa ka qashuucay cabdirashiid cali sharmaake raxmatullahi caleyh waxaan marka xusuustaa hees baa lasoo saaray heeskaas hadda muqadimadiisa idiin sheegay waxaa ka mid ahaa haddii dab ku dhaxamoodo maxaa lagu diiriyaa haddii biyuhu oomaanse maxaa lagu waraabiyaa haddii daawadu bukooto maxaa lagu daweeya waa waxaan macquulahay moogta daawada inay bukooto haddii xagee daawo looga keenay dabku hadduu dhaxamoodo see loo diirin karaa waxa weeye waxaa loola jeeday marka waa su-aal da-weynoo madaxa daalinaysee wixii lagu daweyn lahaa dadweynaha la weydiin macnaha boodka 69 soo socda dowladdaas in la rido weeye macnu halkaa waxaad ka muuqataa dadku weli waa noolaa oo shacbiga hanbaaba ku jiray ama dadka mu'alifiinta ah oo fakera dareen bayba qabeen dadku inuu waxna dooran karo waxna ridi karo hadda markaad isbarbar dhigto waqtigaas hadda aan joogno iyo waqtiga hadda ah markii hadda Soomaaliya anigu aan tegey oo aan muddo ka maqnaa waxaan soo dareemay oo arkay dadku inuu yahay jooga maqan waa joogaa oo haddee dadkii waa muuqdaa magaalada waa la degan yahay ama magaalooyinka laakiin dad jooga ma waxaan uga jeedaa hadda qofka bani aadamka ahi haddii uu garto shacabku in asaga loo shaqeeyo oo dadka madaxda ay u shaqeeyaan oo ay u yihiin waxa la yidhaha qowsaar kelmadda hadda ka horna waa isticmaalay qowsaarku
waa qof la jooga xoolo uusan lahayn oo khidmad ka qaata soomaalida qaar bacay ka dhiga maaha ninka siyaasiga ah ama madaxda ah waa inuu ku yimaadaa rabitaan iyo doorasho dadkiisa laakiin hadduu iska yimaado oo uu ku yimaado nooc ah lacag ayaga laga xaday waa ka xumahay tacbiirtaas inaan sheego lacag shacbiga laga xaday laga dhacay in qaar ka mida inta lasoo ururiyo oo lacag la siiyo la yidhaaho markaas idinku sanduuqaas iigu rida codka saasaan idinku xukumayahay shacbiga saas loola dhaqmaa ama dadka saas loola dhaqmaa ama xamar ha joogo ama hargeysa ha joogo ama garowga ha joogo ama kismaayo ha joogo ama baydhaba ha joogo waxaad arkaysaa inuu yahay shacabkaasi shacab jooga maqan ah waxa weeye marka xaq bay u leeyihiin ilaa shacbi kastaaba wuxuu geyaa oo u qalmaa oo istaahilaa dowladda asaga uu rabo ama dowladdu istaahiluu helaa hadduu garto asaga in khadaam loo yahay ama qowsaar loo yahay oo qofka madaxda u noqonaya ayagu ay leeyihiin inay iyagu doortaan oo u dhiibtaan hoggaanka waxa weeye wixii la rabo oo wanaagsan baa soo baxaya sidii haddaaye uu sheegahayay walaalkii caynab tacliinta caafimaadka wax kasta oo nolosha dhismaheeda ah waa khasab waad ogtiisa siyaasiyiinta adduunka waxa ay wanaajiyaan laguma mahadiyo maxaa yeelay ayagaaba yimid ayagaaba u yimid inay wax qabtaan soo ma kalsooni dadkayna meesha ku yimaadeen waxaa lagu dhaliilaa oo lagu eedeeyaa waa wixii ay ballan qaadeen iyo barnaamijkii ay shacabka u soo gudbiyeen wixii ay gaari waayeen ama ka xumaaday ama ka qalloocday ama qabyo ka noqday baa lagu eedeeyaa laakiin waxay wanaajiyeen cidi kuma eedayso kuma mahadiso innaga dadkeennaas hadda aan ugu yeeray jooga maqan inta la dilo oo si la rabo loola dhaqmo baan xataa la oran ayaan oran yaana dilay iyo maxaa nala ku dilay waxa weeye marka haddii intaa loola dhaqmo halkaa eeddaas yaa qaadaya yaa eeddaa leh eeddaas yaa la saaraya waxaa weeye dadka soomaalida ahi asagaa mas-uul ka ah waxa ku dhaca iyo meesha ay yaalliin ayagaa isdhigay hadalkii ruqyo waxaa ku jiray meesha aynu naallo oo soomaaliya taallo yaa dhigay waxaa dhigay shacbiga soomaalida dhigay ayagaa isdhigay mithaal baan soo qaadanaya waxaan arkay hadda af soomaaligu waagii hore waddankay ugu dambaysay kelmaddan yaa fiican kuma jirin salaanta hadda qofkaad tiraaha iska waran waa fiicanahay buu ku leeyahy waa fiicanahay anugu faan baan u aqaanaa waa qof isfaaniyey oo yidhi anugu waa fiicanahay kelmadda hadda waxaan kelmadda usoo qaatay kelmad la yidhaaha kaalay arag baa hadda mujtamaca soomaalida markaan tago aan arkay aad ii dhibtay waxaa lagu kelmaddaas ay ku qiyaasaan hebel kaalay guryaha uu dhistay arag kaalay arag hebel lacagta uu dhacayna kaalay arag hebel siduu wax u laayey kaal arag waxaa faan noqday oo wax ku faaninaya kuwii la dhacay oo la dibandaabiyeeyey oo la xaqiray oo la ihaaneeyey oo kelmadda xumaan oo dhan marka la yidhaaho dadkii lagula dhaqmay baa waxay bixinayaan shahaadooyin ah kaalay arag hebel siduu u dhaqmay oo faan baa laga dhigaya waxa weeye marka meeshaas dadka soomaalida isagaa isdhigay haddii ay dhacdo marka ilaa waa virus baa ku dhacay dadka soomaalida kow oo ilaa bah tegaysa haddii la soo rogo oo kor loo soo qaado loo taago inay ilaa heer qaran ku socoto halkaa rajaa ka jira dadka soomaalida ahay waxa uu ku jira inuu ka baxana waa suuragal ilaa iyo intaa saas tahay waxay noqonaysaa fadhiidkaasay noqonaysaa soomaalida
dadka soomaalidana iyaga halkaa isdhigay madaxda waxaa la ii sheegay oo aan arkay aan maqlay maalin weyd niman xildhibaana loogu yeeray oo inta lasoo urursaday oo lasoo qoray magacyadooda oo meel laysugu keenay oo la yidhi soo weesaysta macnaheedas weese maxaad ka garanaysaa waa in la tukada suba laaluush waa laydin siinayaa soo weesaysta sidii adii dooran lahaydeen caqligu ma ogol yahay qof inta la yidhi soo weesaysta sidaad khabre u cabto soo weesayso aad khabre cabtid iyo soo weesayso waa ku dhaarinayaa laaluush baa ku siinayaa dadka soomaalida ahi dadkaasay yidhaahaan waana maalan dadka ay doortaan kuwaasina waa kuwa madaxweynayaasha iyo madaxyarayaal maaqa wax la yidhaaha la baxay waxaa laga sugayaa marka maxay yahay dadka soomaalida inuu meeshaas yaallo oo kelmadihii aad tiri qofta la yidhaaha ruqyoy dadkaa inala yaaba iyo ummaduhu waa inala yaabaan ama waa layna ku sheekaystaa waxaa weeye halkaa waxaa isdhigay qaranka xalka marka la yidhaaho waxaan u daynayaa saaxiibadayda kale haddee xalku wuxuu u baahan yahay cidda wax xalinaysa inay wax garatay soo maha waxay u baahan tahay cidda wax xalinaysa oo xalka laga sugaya oo inay wax xalisa la raba inay wax garato soolaanka ama ilaa iyo inta aan garasha jirinna xal ma imaan karo waxaan ka xumahay hadalkaygu inuu adag yahay waxaan ka xumahay in aan ka ugu hormaray hadalka aniga ragga ruqya xoogaa imiinaysay oo waxaan rabay anigu markii ragga kala hadlo iyo gabdhaha kale halkaasaan rabay inaan galo maaragtay laakiin hadda waa ka xumahay in hadalkayguna taagtaagan yahay wixii aniga niyad wanaag bay iga tahay shicaarkeennuna wuxuu ahaa ama halku dhageennu waxna dooni mayno cidnana waxna dooni mayno waxaa weeye intii tabarteennu tahay liinta inta ku jidha laga tuujiyaa maskaxda iyadu inta ay qaado waxaa laga tuujinaya waxa weeye soomaalinimo islaamnimo midnimo gobol kasta oo dalka ka mid oo hadda puntland hadda la sheegay midnimada puntland iyo wadajirka puntland soomaaliya faa'iido u yahay meel kastoo soomaaliya waxaa ka jiro wanaagihiina meel kastoo soomaaliya u yahay wanaag waxa weeye ha ahaatee ninkii geedka igu arkay allow uusan guriga igu arag bay taagan tahay magacyaas hadda la sheegayo oo laanlaanka la leeyahayna gablan mid waliba waa gablan iyo rajo hadalkayga halkaasaan kusoo ururinaya wixii dambe oo xalka iyo haddii odayaashii iyo gabdhaha la wadaagi doonaa waa mahadsantihi weli waxaan ka cudadaaranayaa wixii aan ku aadanayn munaasabadan oo haddii hadalkayga gashay waa ka cudadaaranayaa ninana kuma mathilo aniga igu koobanta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan iska iloobay oo aan rabay inaan ku daro allaha u naxariista cabdirashiid markuu dhintay waxaan bartay muddo kadib nin golihiisa wasaarada ka mid ahaa golihii wasaarada oo markaa madaxweynaha ka ahaa weliba si gaarana xiriir ay u lahaayeen oo ay xidid ahaayeen wuxuu ii sheegay markuu dhintay 3,000 oo shilin baa koontadiisa laga helay waxaan rabaa marka in la isbarbar dhigo 3,000 oo shilin ragga maanta madaxda inoo ah ama wasiir ha noqdeen ama madaxweyneyaal ha noqdeen ama maareeyayaal ha noqdeen waxaan hubaa haddii la yidhaaho qof ka mid ah lacagta aad dalka ka urursatay intee tahay nin madaxa ku haya inuusan jirin hadduu buu ku qoray inuu buu ka fiiriya maaha halkaa marka waxaad isbarbar dhigtaan 3,000 oo shilin madaxweyne 4 sano iyo barna prime minister soo ahaa 2 sano iyo 3 sanona madaxweyne asagoo aan dhintay 3,000 oo shilin baa laga koontadiisa ragga maanta inoo joogo madaxda inoo ah oo shacabkeenu kaala fiiri u bixiyey oo Nairobi iyo Abu Dhabi iyo maxaan ku irahaa markaa tagto la leeyahay kaala arag hebel baale iyo hebel baale oo shacabku ku faaninayo haddaad isbarbar dhigtaan marka bal idinku waxaad yeeshaan halkaas waxaad ka akhriyeysaan dadka Soomaalida maanta meesha uu joogo kelmaddii ahayd meesha uu yaalana yaa dhigay asaga ayaa isdhigay halkaas cid ay eersanaysaana ma jirto haddii la yidhaaho marka qaar baa waxay yidhahdeen Ethiopian iyo Maraykan iyo dad baana dhig
gabay waxaa jira waxaa leeyahay wuxuu ahaa aar soo dirb jiray neef hadduu daacuftii geliyo oo kaga digsiyo ilkaha dhiigga kaga daadsho dugaaggaas yaryari sow kan cunay duugga haray ma macnaa neefka libax markuu ka dhirgo waxa kale haadka iyo dhurwaaga iyo dawacad waxaasaa cun innagaa isqalnay innagaa halkaa isdhignay in marka cid waliba shanta ilala soo gasho dalkeennana meel laga soo galo iyo meel laga baxo aan ka warqabin innaga halkaa isdhignay waa mahadsantii sidaan hore u neriba waxaanu ku tala jirnaa inaanu barnaamijyo taxano ah oo meelo badan ka taabanaya arrimaha Soomaaliya dhibaatooyinka ka jira xagga dawladnimada qarannimada bulshada adeegyada bulshada waxyaalo badan amaarta arrimo badan ayaanu rajaynaynaa mustaqbalka haddii rabbi idmo inaanu si joogtaa madashaan uga soo gudbino maanta waxaanu ku bilaabaynaa su'aal guud oo aanu rabno bal inaan ku eegno Soomaaliya iyo meesha ay maanta joogto su'aashaasi waxa weeye 33 sano ama 34 sano kadib dagaalkii sokeeye waa maxay dhibaatooyinka hor yaalla dadka Soomaaliyeed meel kasta gobol kasta iyo deegaan kasta oo ay ku dhaqan yihiin maxaase xal u noqon kara dhibaatooyinka si kale haddaan u dhigo maxay dadka Soomaaliyeed maxay Soomaaliya u tahay waxa ay maanta tahay iyo meesha ay taalo foolxumada iyo dayaca ka muuqda ee dadka Soomaaliyeed haysta oo dhinac walba leh xag amniga xagga dhaqaalaha xagga hoggaanka caafimaadka waxbarashada arrimahaas walaalkay maxamed horay u taabtay maxay sidaas wuxuu yihiin weeye su'aasha maanta aanu ku bilaabaynaa barnaamijyadayada maxaase xalku ku jira sidee wax looga qaban karaa su'aashaas waxaan marka hore siinayaa walaal cabdirisaaq daad aad baad u mahadsan tahay walaal ruqyo asxaabta kale oo saaxiibaday ah oo meesha ku wada jirana waa salaamaya waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba oo barnaamijkan arki doonta iyo inta maqli doontaba intaas ka bacdi su'aasha aad weydiisay horta waa su'aal ballaaran oo gudaweyn oo barnaamijyo badan in laga sameeyo ayada ay tahay waxa Soomaaliya ay sidaas u tahay maanta ku sugan tahay wax badan oo isdul karooran sababo badan oo isku dul rasaysan ayaa keenaya marka anigu mana qabo intii xorriyadda la qaatay iyo dhaqankii ka horreeyey oo xoolo dhaqashada oo ay dadka Soomaalida badankood iyo maaragtay miisaankoodu ahaayeen dad xoolo dhaqata ah oo reer guuraa ah bay ku xariirsan tahay intii burburka ahayd keliya ma aha ilaa xorriyaddii ilaa ka hor ilaa dhaqankeennii xoolo dhaqatada ayaa lug ku leh ilaa gumaystihii ilaa maaragtay aqoonta dawladnimada oo aynaan maaragtay u soo lahayn markii hore maadaama dadkani xoolo dhaqato iska ahaa raacata ah aysan ahayn aqoon hore ay u yaqaaneen marka arrintaa haddii la damco in laga jawaabo waxay u baahanaysaa ooda dhacameed oo isa saaran oo badan in la kala qaadqaado bay u baahanaysaa marka waxaan isleeyahay barnaamijyadeenna soo socda ayay tahay arrintan in maaragtay si qayba mar ah in lagu qaadaa dhigo ilaa la soo gaaro hadda sida ay wax yihiin iyo sababaha hadda tooska ah oo sababihii hore
إلا أنت سببوا وكلا دلنا سببها جرا وهذا توسك سلو فهمه waxa dhabta ah oo wadankeenu sida u yahay waxay u baahan tahay ooda dhacameed oo isa saaran oo badan oo arrimo badan oo ishuwan ah in la soo kala dhigdhigo taasna waxay u baahan tahay waqti dheer oo qayb mar la faahfaahiyo bay u baahan tahay marka aan oran lahaa su'aashaas hadda intaasaan ku soo koobi lahaa waa mahadsantihiin aad baa u mahadsan tahay walaal cabdirasaaq waxaan su-aasha isna jeclaan lahaa inaan siiyo walaal Suleymaan salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan wax yar aniguna aan ku darsado inta walaaluhu yiraahdeen oo ku saabsan su-aashii ruqyo ina weydiisay waxaan u malaynayaa dabcan hal jawaab oo keligeed saxan inaysan yeelan karin sida laga dhawaajiba ay u baahan tahay meelo badan laga fiiriyo laakiin hal meel oo aan rabo inaan ku tiirtiirsado waxa ahayd si aan u garanno waxa Soomaaliya maanta xaaladeedu tahay dagaalkii sokeeye ka sokow kadib waxaan u baahnaa inaan ogaano xagee ka nimid markii hore marka meeshii hore aan ka nimid waa sida hadda Cabdirasaaq uu sheegayay oo ah ilaa iyo boqolaal sano ka horreysay inaynu lahayn dhaqan reer guuraa ah oo haddii buxunkadi leeyahay yaqaana ayagu mataqaanaa siday u wada dhaqmi lahaayeen ayadoon shuruucdan reer galbeedku inoo keenay waagii dambe aynaan shaqo ku lahayn qaab kale oo aynu u dhaqanno haddii dembi la galo haddii wax la isweydaarsanaya haddii wax la kala gadanayo iyo wixii lamida asal ahaanna dhaqankeennu iyo hadda waqtigan casriga in badan oo kamid kaasu ku salaysan yahay laakiin waxaa barxay dhaqan aynaan shaqo ku lahayn shuruuc aynaan shaqo ku lahayn iyo nidaam aan dadku intooda badan ay ku adag tahay inay fahmaan laakiin taa macnaheedu maaha inaan la iswaafajin karin anigu waxaan qabaa weli in la iswaafajin karo haddaynu soo qaadano dadku waxay ku fiicnaan lahayn waxyaalo concrete masaal concrete in loo sheego waddanka Rwanda oo dhibaatayna ku wada dhacday waqti isku mid ah waxa weeye waddan ciladihiisaba ha lahaado oo hadda wax iska nadiifa boqolkiiba boqol waa yar yihiin laakiin adduunka waxyaalo meelaha laga sheekeeyo ayay ka mid yihiin oo dadka researchka iyo cilmi baarista ka shaqeeya ay baarayaan si ay ugu suurto gashay ayadoo intaas oo boqolaal kun oo qof lagu dilay waqti gaaban oo dad dictator weliba lagu tilmaami karo marka qaarkood ay madax ka yihiin haddana waddankaasi dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan iyo maamul ahaan inuu saa u koro oo adduunka kasoo Afrika oo dhan kasoo dhex baxo lagu tilmaamo wadamada ugu barwaaqo badan uguna horumar badan adduunka dee sabab baa keentay sababtu marka waxay tahay bulshada qaybaheeda kala duwan ayadoo mid walba mas'uuliyad gaar ah ay leedahay haddana waxaa hoggaan u ah ciddii markaas hoggaanka u noqota ama nidaam siyaasi iyo dowladeed ha ku yimaadaan ama nidaam dhaqan ha ku yimaadaan nidaamkaasi marka wuxuu noqonayaa brainkii maskaxdii hoggaaminaysay bulshadaasuu noqonayaa maskaxdu marka haddii ay jiran tahay oo waxyaalihii aan kasoo sheekayno oo dhibaatooyinka haya dhaqamadii ahaa aysan bedeline ay koodii hore ku socdaan waxa weeye jirka intiisa kalama shaqaynayo maskaxdu hadday halowsan tahay oo qariban tahay wadnuhu ma shaqaynayo beerku ma shaqaynayo luguhu ma shaqaynayaan araggu ma shaqaynayo maqalku wax shaqaynaya ma jiraan aniga marka waxaan is leeyahay waxa ugu muhiimsan oo innaga ina ka khaldan oo intaasoo dhan ina ka khaldanaa gaar ahaan waqtigan dambe casri ah in maskaxda oo ah hoggaanka dalka marna inaanay wanaagsanayn oo ay dhaqankoodii hore aanay waxba ka bedelayn oo ahaa ku salaysnaa kan iska riix kan iska dhici kan boob kan dhac kan dil ayagoo hoggaankii bay dabiicadihii dadka caadiga lahaayeen dhowr boqol sano ka hor bay leeyihiin ilaa yani taas wax laga bedelana waxa weeye wax badan oo inoo hagaagaya ma jiraan hoggaanku waa inuu isbedelaa waa inuu la yimaadaa daacadnimo waa inuu la yimaadaa cadaalad waa inuu la yimaadaa daljacayl waa inuu la yimaadaa dadka inuu adeego marka si kastoo wax loo wanaajiyo haddaan dadka mas'uuliyiinta ah oo maskaxda dadka ah oo hoggaanka u ah aanay intaa la imaanin aysanna jirin in lagu aamino keliya maaha waa inuu jiraa nidaam lagula xisaabtami karo oo bulshada hawsha u dhiibatay ay kula xisaabtami karaan marka waxaan is leeyahay labadaa meelood weeye waxa ugu muhiimsan meeshu ka khaldan yihiin waa maskaxda oo khaldan iyo cid la xisaabtanta oo aan jirinin waxaan rajaynayaa mustaqbalka soo socda inaynu dadka u bidhaamino
sida waxyaalahaas wax looga qaban karo muddaba ha qaadatee hadalkayga intaasaan kusoo gaabinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka su'aal baan waxaan weydiin lahaa inay fursad i siiso walaal ruqyo walaal cabdirasaaq may maqlaysaa si fiican cabdirasaaq daad walaal ku soo dhawow mar kale su-aasha su-aashaas waa ballaarantay saan markii hore u sheegay ama walaale saleebaan hadda u faahfaahiyey laakiin waxaan halkaa farta ku fiiqi lahaa ummadaha marka ay isbeddelka macnaha u baahan yihiin horumar isbeddel inuu ka dhaco dhaqamadooda ama noloshooda waagii horena badanaa sibuu uga dhici jiray waagan dambe oo maaragtay bini'aadamka isu furmay oo kala war helay oo xoogaa ilbaxnimadii sii badatayna si kale u gudbay qaabka isbeddelku ku yimaado waagii hore wuxuu ku iman jiray badanaa waxaa marti loo ahaa inuu soo baxo hoggaamiye bulshadaas nolosheeda sida ay tahay ka beddela oo isagu la yimaada hal abuur iyo go'aano iyo maaragtay inuu ka raro dadkaas oo geedi iyo hayaan geliyo una raro noloshay ku jiraan nolol ka fiican laakiin ay arrintu ku tiirsan tahay hoggaamiyahaas iyo mabaadi'da uu ka duulayo iyo kartidiisa iyo waxa waagi hore saasay u badnayd hadda waxaa timi bini'aadamku inay hoggaamiye sugaan ama marti u noqdaan badanaa waa laga gudbay waxay ku xiran tahay oo loo gudbay shacabku inuu hoggaamiyaha lana xisaabtami karo midka xunna iska eriyo midka wanaagsanna taageero ay runtuna ay awoodda shacabka ka timaado had iyo jeer shacabkuna yahay waxa ay ka baqayaan madaxda iyo siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaashu ay ka baqayaan shacabku yahay mid ka warqaba siduu hadaayo hore uu sheegay cabdirasaaq sheekh axmed mid ka warqaba xuquuqdiisa iyo awoodda madaxdu waxay tahay innaga masalan shacabkeena soomaaliyeed qofka markii madax uu noqdo inay qofka la xisaabtamaan oo si dhaba qofka loola xisaabtamo kama timaado shacabka ciddii fikraddaa soo jeedisana mucaarad baaba la mooda marka qofku markii uu madax noqdo u fiirsada dhaqankeennu hadda siduu yahay qofku markuu madax noqdo inuu fasaxan yahay buu la mid yahay inuu fasaxan yahay waana fasaxan yahay xaqiiqatan wuxuu u fasaxan yahay wax la xisaabtami karaa inaanay jirin xad celiya oo asaga celiyana inuusan jirin siduu hadba interestigiisa iyo danihiisa khaaska asagu u arko inuu u dhaqmo wax lagula xisaabtamo iyo wax celiya iyo maaragtay hadday tahay xuquuqda nafta iyo xuquuqda maalka iyo xuquuqda karaamada iyo badbaadada dalka iyo badbaadada ummadda iyo horumarka ummadda iyo dibidhaca iyo dhibaatadu geysto waxaasoo dhan waxaad moodaa dadku inay marti iska yihiin oo ay sugayaan asagu niyad wanaaggiisa inay ku tiirsanaadaano hadduu niyad wanaagsan yahayna asagu uu hagaajiyo hadduu wax bi'inayana dadku ay victim iska noqonayaan baylaha oo dayacan marka shacabku sidii uu cabdirasaaq sheegaya weeye kuma baraarugsanaa shacabka soomaaliyeed inay ilaashadaan xuquuqda shacabku leeyahay masalan canshuur baa laga qaadaya dadkii canshuur baa laga qaadaya qofka canshuurta bixinaya canshuurtu meelay aado warna kama hayo lagana biqi mayo canshuurtii inuu ka daba yimaado su'aal ka daba keeno canshuurtii laga qaadayo oo aan adeeg dawlad waxaa loo samaystaa adeegga dadweynaha inay u adeegto dawladdu wax kale ma sida qabiil ma aha waa dad samee wax dadku kulanka dadku meel ku kulmaan oo isugu yimaadaan danaha isaga xiran dadka oo la rabo in loo fuliyo loo qabto dadna waa dadka sida privateka u shaqaysta dadna waa dad loo xulo inay danihii guud oo dadka ka dhaxeeyay fuliyaan sida baarlamaanada sida madaxweynaha
sida wasiirada mushahaara la siiya sida maaragtay shaqaalaha oo dhanba dawladda oo mushaharada waxay u qaadanayaan adeegii la rabay inay qabtaan hadda misalan waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah maamulada jira Soomaaliya waxaad ka maqlaysaa oo ay ku faanaanba marmarka qaarkood inay intaasoo mushahaara ay bixiyaan marka haddaanu hadda matalan qof madax ka dhigan oo uu noo sheego inuu mushahaaro asaga iyo dadka asaga la shaqeeya ay mushahaaro qaataan oo wax qabad nooga dhigo mushahaarada ay qaataan annaga canshuur bixiyayaasha ahaa mushahaarada ay qaataan ujeedadayadu ma aha ujeedadayadu waxay ahayd adeegii aanu u baahnayn inay noo qabtaan annaguna canshuur bixinno oo mushahaaradooda canshuurtaas qayb ka mid ah mushahaaradooda baa lagu bixinayaa canshuurtayada canshuurta inta kale waxaa lagu bixinayaa adeegaanu u baahnay oo shacabku wacan u baahnaa caafimaad lahaa waxbarasho lahaa biyo nadiifa lahaa horumarinta miyiga iyo xoolaha oo nolosheenuba ku dhisan tahay ay ka mid tahay ilaalinta dalka oo maaragtay ama cadow dabadeed laga ilaaliyo ama wixii maaragtay aan munaasib u ahayn sida wasakh lagu duugayo ama sun ama jiriifid la dhacayo wadankii khayraadkiisa ay ka ilaaliyaan marka shaqadii la qaban lahaa oo adeega dawladda loo samaystaba adeega bulshada loo samaystaba adeegii waa maqan yahay waxa inta ka sii daran madaxda Soomaalida ee hadda jirta marka ay dhaqaalaha qaadanayaan oo markhaatiga cad oo dadkoo dhami garanaya hantida ay ka samaysanayaan dhaqaalihi oo muuqata ay ka samaysanayaan lamaba dhuuntaan lama dhuuntaane indhahaagoo shan ay hortaada ka dhisanayaan dabaqyadii indhahaagoo shanaba ay shirkada ku samaysanayaan kaaba biqi mayaan adigii shacabka ahaa marka qofkaan shacabka kuma baraarugsana qofkaan madaxda ah asaga canshuurtu ka qaadanayo inuu ugu adeego oo dadkan shacabka loogu adeego sababtu inay ahayd inta marka canshuur bixiye bilaa xuquuq ah weeye shacab sida hadda markaan u hadlayno dad badan baa waxay moodayaan mucaaradnimo arrinta oo maxay mucaaradnimo ku tahay siyaasadda dhinaca ay dadkeenu siday ku hadaaqaan hebel buu la jiraa iyo hebel baad ka soo horjeedaa weeye aragti ma jirto aragti nolosha horumarinaysa oo bulshada horumarinaysa oo il bixinaysa oo daaweynaysa oo waxbaraysa oo warshada samaynaysa oo khayraadka soo saaraysa oo xuquuqda ilaalinaysa oo xiriirka bini'aadamka la leeyahay ama Soomaali ha noqoto ama bini'aadamka kale ha noqoto hagaajinaysa oo bulshada gudaheeda isjeclaysiinaysa oo bulsho isjecel ka dhigaysa oo maaragtay u tilmaamaysa meel loo socdo oo la higsanayo u tilmaamaysa sidaa in madaxnimadu ay tahay shacabku ma fahansaneen waxa weeye hebel baad necabtahay iyo hebel baad jeceshahay bay ugu qaybsantahay arrin war hebelna ma necbi hebelna ma jecliye waxa aan rabaa madaxnimada macnaheeda inaan la leexin oo la khaldin oo la habaabin marka marka muxuu shacabku u yahay waa arrintii aan lahaa markii hore waxay u baahan tahay sida ooda dhacmeed in meel fog laga soo bilaabo dhaqankeenna reer miyinimadeenna dawlad ka warqab la'aanteenna waxaa oo dhan macnaha in la soo gaaro markaa sababta shacabku sidaan u yahay markii dadka shacabkaa la fahansiiyo oo ay taasu caddaato markaa kabacdi baa waxaa dhalan karta madaxnimada macnaheeda inay fahmaan inay markaas noloshooda qiimo u yeelato hadda qofkii intii la doonaa la dilayaa waa aamusayaa qofkii dadkiisii la laayay waa aamusayaa oran mayo war dadkaygii baa la laayay lama yaqaan sababta u aamusaya soo ma arkaysaan waxa baarlamaan ku sheegyada ah soo keenidii meesha la keena wax kastaba ha ahaatee ka biqi mayaan in shacabku yidhaahdo baarlamaan ma tihin oo sida aad laaluushka iyo waxa ku dhex jirtaan oo aan maaragtay ma aha waxaanu idiin soo dirsanay ka ay biqi mayaan shacabku aadi mayo ku mudaaharaadi mayo muxuu ahaa dadka markii la iska laayo shacabku mudaaharaadi mayo waa aamusan yihiin wixii ku dhacaba waxaa moodaa guri ku soo dumayo ay madaxa maaragtay gacanta saarayaan bay la tahay facaayilka dowladnimadaba waxay u qabaan ninka madaxweynaha noqda iyo wixii la shaqeeya dadka inay leeyihiin oo kale sida
hanti baa dadkii isu beddelaya hantidoodii si la mid ah baana madaxdii u dhaqmaysaa marka ma dhowa arrintaanu aamuska la aamusan yahay oo waxgaradka Soomaaliyeed ka aamusan yihiin 30 sano burburkii lagu jiray waxgaradkii Soomaaliyeed waa aamusnaayeen badankood dadka hadla oo inta hadlayay ama haddaba hadla waxay u badan yihiin dad aan indheed garad ahayn bay u badan yihiin iyo dad dana leh oo dana isku haya laakiin si baraxla adigoo aan dan gaar lahayn oo slogankii uu walaal Cabdirasaaq Sheekh Axmed keenay oo ahaa annagu lafaha iyagana wax u dooni mayno cid gaarana wax la dooni mayno hadday labada mid jiri lahayd oo aad adigu lafahaaga wax u doonaysid ama cid gaar aad wax la doonaysid waxaad noqon lahayd cid markaas interest hagayo baad noqon lahayd oo interest ilaashanaysa laakiin markaadan cid gaarana wax la doonayn lafahaagana aadan mansab iyo manfac midna la raadinayn ee dantii ummadda laga hadlayo waxaa wanaagsanaan lahayd dadka shacabka ah arrintaa inay si fiican oo dhaga furan u dhageystaan in cid la nabcaanayo iyo in cid la jeclaanayo kuma lagu lahaa hooyada canshuurta bixisa ilmaheeda waxbarashadeeduna saaran yihiin ayad qorraxdana fadhida haddii hadal soo celisana guriga albaabka lagala baxayo hooyadaasi maxay saa u mudanaysaa taasay ahayd hooyadu inay dareento wiilka ay dhashada askariga ah oo la leeyahay albaabka gurigiina ka soo bixina waxay ahayd inuu yiraahdo maxaa hooyaday oo qorrax fadhida oo ilmihii maaragtay yaanyo qorrax dayac la fadhida oo haddana gurigii qolka ay degan la leeyahay waa la canshuuraya oo haddana iridii lagala baxayo oo aan biyo la siinayo oo waxbarasho la siinayo oo caafimaad la siinayo oo nolol oo dhan maqan tahay sax ma aha sidaasay ahayd askarigu inuu garan karo oo qof kasta oo Soomaali garan karo inuu ka xisaabtamo dawladdu waa wax loo dirsaday inay u adeegto dadweynaha siday hadda u dhaqmayaan madaxda Soomaaliyeed kulligood meel ay joogaan dawlad goboleedyada iyo midda dhexeba waxaa laga adeeganayaa dadweynihii oo baylaha ah oo sakaar waran ayaa dayiciisa laga faa'iideysanaya hantina laga tabcanaya marka sidaa kuma dhacdeen haddii ay dadweynuhu wacyi lahaan lahaayeen ama dadka waxgaradka oo dheer garadka muddo dheer ay dadka la soo hadli lahaayeen waxbaa dadku fahmi lahaa qofka madaxda ahina inuu boqo baa iman lahayd lana xisaabtami karo marka aad baan waxaan u soo dhaweynayaa doodaha kan in aynu sii wadno shacabka Soomaaliyeedna ay dhaga furan ku dhageystaan cid aanu mucaarad ku nahay iyo cid aanu maaragtay wax la jecel lahay oo aan ummadda Soomaaliyeed ee shacabka aan wax la jecel lahay badbaadadiisa mooyee arrin siyaasadeed oo cid ku soo dhaweysanayna ama cid ku fogeynayna nuguma jirto isumana quurno oo dadka iyaga hadda hawsha tan bilaabay oo samatalis la yiraahdaa nuguma jiro qof dhiiga shacabka oo da'ayay iyo sakaar warnaanta shacabka 30 sano qof xil u soo qabtay oo ka soo mid noqday mahoobiga la mahoobiyayo dhiigii iyo hantidii shacabka qof ka soo mid noqday nuguma jiro cid naga hortaagnaydna ma jirta aan damiirka iyaga ahayn marka damiirka iyaga aanu ku diidanayn in shacabka sidaas loogaga faa'iideysto asagoo dhibaataysan oo dhaawacan damiirka aanu ku diidanayn baanu haddana ku diidanahay inaanu shakhsi ama u ololayno ama shakhsi nabcaysano waxaanu ka hadlaynaa waa dantii ummadda Soomaaliyeed jiritaankeedii iyo wadajirkeedii oo meesha ay maanta marayaan aynu ognahay in maaragtay la iska googoosto la goobaysto baddi iyo barigiiba maraya arrintaasi waxay u baahan tahay aragti ummadnimo wadaniga Soomaaliyeed oo aamusan oo qarsoomayna waxaa laga rabaa inay muuqdaan oo soo baxaan oo hadlaan oo meel ay joogaanba isku aragti noqdaan sababtoo ah arrinta qabyaaladda iyo qabiilka iyo corruptionka ah oo maaragtay ay ku shaqaystaan waxa dadka hortaagtaagan wadaniga Soomaaliyeed inuu kor uga baxo oo arrinta warka qabiilka oo la ogaa reerna inaan qabyaalada wax tarayn waa la soo ogaaday marka wadaniga ayaa wadaniga kale la walaal hooyada qorraxda fadhidan wadani ka naxa ayaa wax ugu yaal sidaa marka ayaan shacabka Soomaaliyeed iyo indhergaradka Soomaaliyeed ku soo jeedinaynaa kuna guubaabinaynaa aad baa u mahadsantiin salaamu calaykum Irsaaq aad baa u mahadsan tahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa annagoo dhanna kaaga mahad celinaynaa sidaas
sida aad u taabatay dayaca iyo darxumada iyo rajo xumada maanta dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin deegaan kastoo joogaana ka muuqata aad baad u mahadsantahay waxaan hadda su'aasha u gudbinayaa walaal Caynab maxamed cabdi Caynab السلام عليكم ورحمة inuu الله isna وبركاته. ku daro weliba xagga maxaa xal noqon kara iyo su'aashii ahayd maxay dadka Soomaaliyeed meesha ay maanta yaalaan iyo dayaca haysta maxaa sababay maxaase xal noqon kara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقية ولا وما سنتهي. horta su-aashatan dayaca Soomaali guud ahaan haysta ama gaar ahaan gobolkan Puntland oo aan ka soo jeedo horta ilaa iyo 2011 anigu maqaalo ayaan qoray maqaaladaas oo u badnaa wacyigelin laga bilaabo Faroole markii la doortay waxaan u qoray warqad dheer oo aan leeyahay haddii aan madaxweyne ahaan lahaa Puntland waxaan samayn lahaa qodobadaas haddii noqoto shaqo abuur haddii noqoto dowlad baarlamaanku iyo maxkamaduhu kala baxsan yihiin haddii noqoto shaqada dhalinta loogu abuuro warqadahaas waan hayaa haba kama naasacadaan qodobadii aan rabay oo aan markaa arkayay gaas baa yimi haddana warqad kalaa u qoray dheer waan hayaa warqadaas isla intii Faroole aan kula dardaarmay oo dowlad wanaagga ah shicibka in loo naxo waxa weeyaan waxaan uga jeedaa haddii aan in ilmaha Soomaaliyeed ama midka oo reer Puntland laga fekero mustaqbalkiisa galaaskee wax ku baranaya dugsiga hadduu ka baxo secondary hadduu aado jaamacad hadduu aado maxaa u shaqo ah maxaa u mustaqbal ah mar kasta waxaas baan qoray gaas waxaa bedelay Sayid Cabdullaahi Deni isla warqadii baati u qoray wixii intaas aan qorayay wax iska bedelay haba yaraatee ma jirto allah arrintii wax iska bedelay wixii ilaa iyo 2011 aan waday ma jirto marka aan mulaaxado sameeyeyna waqtigii Faroole wuxuu ka fiicnaa waqtigii gaas wuxuu ka fiicnaa waqtigii koowaad oo Sayid Cabdullaahi Deni waqtigii Sayid Cabdullaahi koowaad wuxuu ka fiicnaa waqtiga hadda oo Sayid Cabdullaahi tu macnaha waxaan arkaynaa in dadkeennu noloshoodii sanadba sanad ka dambaysa waxbarashadoodii caafimaadkoodii shaqo abuurkii qualitigii tacliinta nabadgelyadii cadaaladii dowlad wanaaggii in sanadba sanadka ka dambeeyo uu ka sii xumaanayo meesha adduunka sanadba sanadka uu ka dambeeyo dadku ay ka sii fiicnaadaan waxaa halkaa iga soo baxday marka 2011 qoraalkii aan bilaabay dadkeenu wax ma akhriyaan inayn waxba bedelin ama naseexadii iyo baraarujintii aan waday ayan waxba dadkii waxba ka bedelin ilaa qaliil in yar mooyaane oo ila soo xiriirta mooyaane ummaddeenu marka waxay u baahan tahay marka dowladahaas aan waxba aan soo kordhin oo qofka marka uu anigu problemka waxaan u arkaa qofka marka la dooranayo wuxuu u tagaa madaxnimada Soomaaliya haddii noqoto ama maamul goboleedyada kale haddii noqoto ama Puntland haddii noqoto waa privilege waa inuu ka xooleysto inuu ka danaysto laakiin qof maskaxda ku haya in uu ummadiisa u adeego oo maanta meesha shicibku uu joogo ee berito ay ka fiicnaadaanin fishinkaas qof leh
aniga weli ma arag iyaguna shicibkuna waxay dowladnimada u haystaan sida ay ku dhaqmayaanin madaxda Soomaaliya ama federaalku ama middan oo gobollada ama midda Puntland in qofkaas markaa madaxweynaha noqday uu qofkuu rabana wasiir ka dhigo kuu rabo jenaraal ka dhigo dadka ehelkiisa ah qaraabadiisa ma fahamtay oo wax oo xisaabtana ayan jirin dadkuna saasay aaminsan yihiin annaga marka samatalis waxa isu kaaya keenay waxa weeyaan bal marka horeto shicibka in aanu u macnayno war inayan saatan ahayn ee shicibku uu yahay shicibka baawarka leh oo iyagu ay dhahaanin saatan nama qabato dalkan annagaa leh marka ujeedadanadu waxa weeyaan mawaadiicdanadu waa badan doonaan afkaartanadu waa badan doontaa exambladu waa badan doonaan baraarujintu waa baran doonaa yani maanta bilownay maanta wax kasta inay hagaagaan longi termi baan ku talagalaynaa bal ummaddu in la fahamsiiyo labada qof oo Soomaalida meediyada haysta waxa weeyaan oo ummadda meeshii wax looga sheegayay waa wadaadada waa dadaaleen tabartood laakiin wadaadadu kama hadlaan dowlad wanaag kuma dhiiradaan waxa dowlad wanaagu yahay kama dhiiradaan cadaalad darrada kuma dhiiradaan xoolaha dadweynaha la dhacayo kuma dhiiradaan u fahamtay wacyigoodu badanaa wuxuu u badan yahay aakhiro waxaa jira cadaab iyo naar dadku masaajidada waa buuxaan laakiin diin laguma camal falaayo marka haddii diin ku camal fali lahaayeen waxa weeyaan ma dhacdeen in ay ku jiraan in xaqirnimadan ay xaqiran yihiin tacliintii baa xumaatay cid ka hadlaaya male caafimaad baa jira cid ka hadlaaya male cisbitaalada dowladda dad baa baraafid ugu shaqaysta cid ka hadlaaya male ma fahamtay halkii galaas waxaa ku jira 70 arday marka xalku muxuu noqonayaa xalku waxa weeyaan war in ummaddan Soomaaliyeed ee u soo jeesato dalkooda in reer Puntland shicibkan loo kala qoqobay qabiilka qurmay oo iyagoo dhanba ay isu arkaanin beelo meel wada degan oo bilba beesha kaleeto ee u arkayso cadow iyo aan iska ilaalino halkaasna ee tafaraaruq iyo karaamad darro ee ku dhacday kadibna nimankan xukuma Soomaaliya oo macnayaasha ah ee ka faa'iideystaan oo wax allaaliyo waxay rabaan ay sameeyaan ummaddu qabiil wax ma taro xadiiska rasuulku wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam qabiilku wax ufay oo qurmay waaye ka fogaan marka asbaabta in hayso waxa weeyaan faham la'aan dowladnimada waana midda aanu isu taagnay inaanu ummaddanada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland aan fahamsiino maxay tahay dowladnimo war ninka madaxweynaha xaq muxuu u leeyahay ninka xildhibaanka muxuu xaq u leeyahay war qofka shicibka muxuu xaq u leeyahay habarta caanaha gadanaysaa maxay xaq u leedahay ee markaa dhahanin saatanna ma qabato oo ay ka gegishaan dulmiga hadda waxa weeyaan wax kastoo lagula kaco wax kastoo lagu sameeyo dhac kastoo la dhaco ummaddan habad wax way iska aamusan yihiin sababtoo ah dad midaysan ma aha waa reer waa jees waa qabiil caqliyad ma laha wax lama akhriyo messageka ay helaanna waxa weeyaan youtubero aan alle ka baqayn oo karaahiye ka hadla oo qabiil ah youtuberadu ay ku guulaysteen oo markay dalka yimaadaan sida loogu soo bambaxayo marka waxa weeyaan waa majaalka keliya oo ummadda u furan oo ku madadaashaan tiina dad xun baa helay oo qabiil iyo ummadda Soomaaliyeed inay isnacdo iyo in la kala fogaado la ka shaqeynaya marka annaga hadda YouTube aanu sameynay samatalis la yiraahdo wanaag baa sheegaynaa Soomaalinimaan ka hadlaynaa dowladnimaan ka hadlaynaa dowlad sharci ku shaqaysaan ka hadlaynaa waxaan raadinaynaa baadigoob ugu jiraa bahalkan la yiraahdo gaarabidaanka oo kaymaha ku nool roobku markuu doo nalka yarka ah leh oo keligiis nalku isu ifiyo marka Soomaaliya waxa ka buuxa gaarabidaan fara badan dad oo wadaniyiina ka buuxa dad wax kala garanaya ka buuxa dad ahlu xikma ka buuxa laakiin sida gaarabidaankaas keligiis iftiinkiisu uu marayo kayda ifkiisu wax ma taro cidna ma ifiyo laakiin waxaanu rabnaa dadka noocaasa oo ahlul xikamka ah oo wadaniyada leh oo tuuga aan ahayn oo laaluushka aan qaadan oo alle ka baqaya oo og
inuu ummadda masaakiinta hadduu ka xolaysto berito kafan ka qaadanayo oo kafantu ayan lahayn jeebab aakhiro lacag lala aado munkar iyo nakiirna haddaa malaayiin wadatid ayan waxba kaa aqbalayn oo camalkaagii alla kugu xisaabinayo qofka ummadda xadana ilaahay naar buu geenaya marka waxaan walaalayaal doonaynaa war in aynu dowladnimo haddii aynu dowladnimada fahmno oo wacyigelintaas aanu wadno oo dadku inta damiir kale inta guriga markay galaan habeenkii qolka ku ooya dowlad xumada iyo dayca dadkeena haysta waa soo gabagabeynayaa walaalayaal ujeeddada aanu u taagannahay waxa weeyaan in gaaraabidhaankaas kala firiirsan aanu ururino si ay u noqdaan nalkoodu mid ful ummadda wax u ifiya oo khayr u ifiya oo xataa kuwa maamulka haya oo madaxda maanta joogta ah ruuxoodu ay la mid yihiin ummaddaas inay fikradaas fiican ay wax ka qaataan oo dhaqanka ay ummadda ku maamulayaan ay wax ka bedelaan diyaar baa u nahay wixii tala ah wixii khibrad aan u leenahay ummaddan in wax loo sheego waa naga go'an tahay intaas baan ku soo gabagabeynayaa waana uga baxay asxaabteyda wacalaykum salaam waa mahadsan tahay walaal maxamed mar kale waxaa si fiican xubnaha oo dhami u eegeen waxna uga yiraahdeen su-aashii ahayd maxay soomaali meesha ay maanta taallo u taallaa maxaase xal u ah waxaan ku dari lahaa dhowr kelmadood si fiican baa arrinta maaragtay qofba meel uga istaagay anigu waxaan su-aashii la weydiiyey baan su-aal kale midha jawaab uga dhigi lahaa waxa weeye maxaa marka u horeysaba soomaalida mudnaanta koowaad u leh si wax ugu hagaagaan maxaa horta mudnaanta koowaad say dhib uga baxaan maxaa mudnaanta koowaad u leh dhibaatada dadka Soomaaliyeed maanta meel kastoo joogaan haysata oo waliba xagga ay ugu horeyso maamul xumada iyo hoggaan xumadu aniga waxa ila muuqataa markii taariikhda dhow aan ka soo qabto wixii burburkii ka dambeeyay inay burburkaas 33 sano mise 34 waxaan u maleynayaa 91dii markay ugu xumayd haddii laga soo bilaabo burburku iyo hoogii iyo halaagii iyo kalaxaadkii caasimadda Soomaaliya maaragtay ka dhacay iyadoo inta kalena dhibaatooyinku ka jireen laakiin meeshaas ahayd meeshii epic centerka u ahayd dagaalkii sokeeye waxa weeye dadkii wiilkii maalintaas jiray 10 jirka ahaa maanta waa 40 iyo 4 jir weyn 45 ban anigu waxaan arkaa dhibta maanta iyo dayaca iyo hoogga iyo halaaga haysta tan ugu weyn midhaa inay tahay dadkaas aan dowladnimada ku barbaaray ku caqliyeystay ku hana qaaday maanta qaangaar intaa looga 44 jir ah inay yihiin ummad dowlad la'aan qof walbowba sidaa rabtid yeel waxaa rabtid boob ciddaa rabtid ku tumo waxaa dhici kartid dhac waxaan u malaynayaa inay qayb ka tahay ama ugu weyn tahay dadkii sidaas caqliyad kale aan lahayn iyo garasho kale ayaan maanta waxaa laga yaabaa inay iyagu hogaamiyayaashii ka mid yihiin ama maanta kuraas ku fadhiyaan ummadda Soomaaliyeed ee looga talinayo marka maxaa laga filayaa weeye dadka noocaasa dadka intaas moogiyo wax kalaba aan aqoon oo qaarkood laga yaabo weli inay haystaan xataa hantiyo dad kale laga dhacay guryo dad kale laga bilaqaysto laga boobay markii dagaalkii dhacay
maxaa laga filayaa wey inay wax hagaajiyaan wax wanaagsan baa laga filayaa mise inay wax toosiyaan taasi waa waxyaalaha aanu arko inay dhibta ka mid tahay dayaca haysta Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka jira marka waa nooca dhaqanka abuurmay oo ummadii hore Soomaalida ahaa sida u dhaqmi jireen iyadoo aqoonta iyo cilmigu intaan ka yaraa iyadoo dugsiyada iyo meelaha waxbarashada loo doonto intaan ka yaray iyadoo diinta iyo quraanku intaan ka yaraa sidaan Soomaalidu uma dhaqmi jirin xad aan la dhaafin qofka bilaadanka ahi uu se ka gudbi karin oo xumaha iyo waxa hadda ka muuqda Soomaaliya laga xishoodaa jira si kastoo qofku fakhri u yahay ama waxba u haysan ama uusan wax u baran marka wixii ummadda hagi jiro marka aadaminimada ku salaysna iyo dareenka qofka bilaadanka baan u malaynaya aniga ila muuqata fikirhaan inay meesha ka baxday qofkiiba marakan meel uu ku joogsado oo uu damiirkiisu kaga qabto waxaa nolosha macaamilka la noolaashaha daris la dhaqanka xaq dhowrka dadka kale wixii ka qaban lahaa wixii bari lahaa ama wixii u sheegi lahaa ama wixii ka joojin lahaa wixii xadguduba baaban meesha ka baxay oo dhaqan hor leh baa samaysmay bay aniga ila muuqataa waxaan kale maxaa xal noqon kara weeye waxa kale dhibtu waxay kala noqotaan xalka u gudbin dhibtu waxa weeye oo kamid ah qabiilka walaalayaal ay awal si fiican uga hadleen inuu kamid yahay burburka iyo halaaga Soomaalida haysta qabiilku maahan kii aynu naqiinay in wax la isku taro la isku kaalmaysto deegaan lagu wadaago biyaha iyo xoolaha iyo maaragtay daris wanaaga iyo maaragtay la isku xeerin jiray ma ahan hadda hoggaan xumadii iyo burburka Soomaaliya dhinac walba ka taabtay dadka ku soo baxay oo raba inay hoggaamiyaal ku noqdaan waxay aniga ila muuqata inay saddex wax kaga faa'iideystaan qabiilku waa kan u horeeya maxay uga faa'iideysanayaan waxay rabaan inay qabiilka awood ku helaan kuna haystaan waxay kaga faa'iideysanayaan inay hanti ku boobaan bay qabiilka uga faa'iideysanayaan marka qabiilkii wuxuu noqday wax la adeegsado si qof hanti ugu helo kursi ugu haysto kursi ugu helo wuxuusan xaq iyo xuquuq midna u lahayn qofna ku raadsado waxaa kaloo dadka sidoo kale looga faa'iideystaa waxa weeye waa baahida waxa la qof baahani waa haddee qof hadduu baahan yahay dadku markii hore waa baahan tahay bakti looma cuno waagi hore Soomaalidu iyadoo baahan bay dad goba ahaayeen dad goba ah oo xishooda oo xaaraan ka xishooda oo boob ka xishooda oo waxaysan lahayn ka xishooda waxa yar oo haystaana ummadda kale la wadaaga waa dhaqanka wanaagsan oo Soomaalidu leedahay qof waxa yar oo haysto buu kii marti u ah iyo kii socota iyo kii ehel la ahba la wadaagi jiray isagoo haraadan buu koobka biyaha qofka kale oo Soomaaliga uga hormarin jiray hadda waxa soo baxay dadaan waxba deeqayn waxaa samaysmay damaacinimo horarnimo ah oo qofku uusan wax kasta hadda oo Soomaaliya yaala hadday qaataan aan dhahayn in nagu filan waan haysanaa xataa waxaan aaminsanahay waxa dunida yaala Soomaalida dhaqamada ka samaysmay waxa dunida yaala hadii la siiyo inaysan kuna qanacayn kuna joogsanayn waxa kaloo looga faa'iideysanayaa oo dadka nooca soo baxayo hoggaanka ummadda raba inay u qabtaan ilaa iyo hadda inta kana ama xilal u qabtaan ama kuraas ugu fariistaan waa jahliga iyo wax garasho la'aanta dadka ayaa iyaduna dadku mar haddaysan fahansanayn waxaan dawladda looga dhigayo waxaan xukuumadda looga dhigayo
dadka xildhibaanada looga dhigayo dadka laleeyahay waxbaa doorasho waxaad wax dooranaysay wixii oo dhan dadku haddii ay maaragtay fahamsanayn ama garashadaas intaa leeg waxaas oo ku cusub dhaqankana aysan jirin waa looga faa'iidaysanayaa waxaan ku darsanayaa maxaa xalku noqon karaa waxaan u arkaa xalka in laga bilaabo fahamka dowladnimo iyo faa'iidada ay leedahay waayo dowladnimada ayaa wax walba aasaas u ah oo ay wax walbaana ka farcamayaan marka dhibaatooyinka in la xalliyo waa in dowladnimo fahankeed la abuuro waxaanan rajaynaynaa inaynu innaga iyo intii kale walaalaha soomaaliyeed oo ina ku soo xirantaaba inaynu taas sii wadi doono aynu bilownay ilaa iyo inta ina la gaarto hogaamiyayaal daacad ah daacadnimo iyo damiir iyo dadnimo iyo wadajir sharaf iyo hufnaan ummadda ku hogaamiya inay soo baxaan inay abuurmaan taas hadday wax ka bilowdaan waxaan rajaynayaa in dhibaatooyinkaas arrimahaas ay xalka dhibaatooyinka ka mid noqdaan waa mahadsan howlaha arlada cadil lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo awoodiyo dulqaad ee xala'an ayaa laga rabaa hays oran cidi kuma arkaysi ehela sheego hays oran cidi kuma arkaysi ina adeerso hays oran cidi kuma arkaysi ehela sheego hays oran cidi kuma arkaysi ina adeerso nin xilqaaday eed qadi hooyo nin xilqaaday eed qadi